macnaha dhabta ah ee open relationship inta badan waxa aynu aragnaa dhalinyaro badan oo Facebook-yadooda soo dhiga ama ku soo qorta open relationship weydiintuse waxa ay tahay dhalinyaradaas ma ogaal la'aanba oo ma fahansana miya macnaha dhabta ah ee ereygaas mise waa ka bareer horta marka hore aan ka jawaabo ama aan macneeyo ereyga open relationship waa laba qof oo isku jinsi ah oo uu xiriir ama guur ka dhaxeeyo balse ku heshiiyay in qof kasta oo labadooda ka mid ah uu xiriir iyo galmo la sameyn karo cid kale ka hor inta aanan muuqaalkan sameyn waxaan dhowr su'aalood oo ku aadan fahanka ereygan weydiiyay qaar ka mid ah asxaabteyda waxaana ay intooda badan ku jawaabeen 99% ay u badnaayeen in ay u fahansan yihiin in ereygan micnihiisu uu yahay bilaa xiriir baan ahay ama qofna isma shukaansanay ee ogolaada waad isoo dalban kartaa xiriir ahaan balse kaasi ma aha macnaha iyo ujeedada saxda ah ee ereygan loo adeegsado ama uu ka turjumayo haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed aan horay uga fiirsan macnaha dhabta ah ee ereygan waxaan oran lahaa ka taxadara waxa aydan aqoonta u lahayn ee aad adeegsanaysaan quruxdu waxa ay ku jirtaa in qofku uu ka fiirsado oo uu iska shaandheeyo waxa uu meelahaas oo kale uu ku arko oo uusan seeflabood noqon ilbaxnimaduna yaanay jar naga tuurin wax walba oo ina soo galayana yaanan aayar iska qaadan mahmah ayaa ahayd ilaahow aqoon darraha nagu cadaabin eexna ha nooga tagin kolka dhalinyarada isticmaashay aqoon darro ayaa u geysay ayaan oran karaa ee kama aha kas iyo bareer haddaba ma fiicna adeegsiga ereygan maadaama micnihiisa iyo ujeedkiisa aanu hadda isla garanay hubaal dhalinyaro badan ayaa isticmaashay faham darrada haysa awgeed wixii haatan ka dambeeyana si aad ah looga taxadaro ayaan oran lahaa ugu dambeyn dhalinyaradu inta ay iska ilaalin karto dhaqamada sida qaldan ee qarsoodiga aan ugu soo galaya waa in ay iska ilaaliyaan haddaba daawade adiga weligaa ma adeegsatay ereygan fadlan walaal adiga oo mahadsan sii faafi muuqaalkan oo sheer dheh oo la wadaag asxaabtaada kale mahadsanid